محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه بمثنية على وطني سيدا على وطني وشاغي شركة جرائد ما أنت وحنا وكلا قلي إن أنا كجا هذا دباتوي كم فرقلين كوضع معمول قبلات كيلورنتري بوتلان وهدير لي هذا معمول قبلات كوقوي بريا صوماليا. سيدا وحنا لا هاي سيدي وهراء وشاغي على وطني بوتلان وحلورنتري markii beelaha walaalaha ah ay 1998 wada heshiiyeen oo ku heshiiyeen inay maamul goboleed sameeyaan markii uu socon waayay oo deegaanadii bixiyay Faroole oo kala firdhiyay beelihii Puntland waxa beelaha deegaanka gobolada SSC ay go'aansadeen shirweynahoodii Khaatuma labo ee ka dhacay degmada Taleex taariikhiga ah 12 Janaayo 2012 waxay ku dhawaaqeen isimada uqaasha aqoonyahanka dhalinyarada haweenka ningarboodka jaaliyadaha intaas oo gruubyada kale ee qaybaha bulshadu ka kooban tahay waxay 12 Janaayo ku dhawaaqeen kelmadihii uu go'aamiyay inaadka guud ee garaad Ali garaad Jaamac 12 iyo 45 daqiiqo 12 bisha Janaayo 2012 go'aankaasoo ahaa in beelahaasi go'aansadeen inay maamul goboleed dhistaan maamul goboleedkaasoo la baxay Khaatuma State of Somalia waxa loo doortay madaxweynayaal saddex oo aan dawladaha Afrikaanka iyo maamul goboleedada Soomaaliya midna aysan lahayn ilaa maalinkan maanta aynu joogno waxa maamulkaas Faroole madaxda ka yahay si dadban iyo si toos ah noogu hayay fargelin dulqaad baan u lahayn samir baan u lahayn walaalnimada derisnimada iyo waliba beelaha labada maamul ka soo jeedaan wax ay wadaagaan baan tixgelinayna waad ogeydeen oo wuxuu noo diiday garoonadii ahaa hantida Soomaaliyeed oo ummadda ka dhaxeeyay wuxuu noo diiday wadooyinkii Soomaaliyeed ee gobolada isku xidhayay ee hantida Soomaaliyeed ahaa wuxuu noo diiday magaalooyinkaas beelahaana iyo Soomaali ahaan labadaba wax ku lahayn ama ku leenahay hanti Soomaaliyeed intaas oo dhan markii uu Faroole diiday dulqaad baan u lahayn garoonada iyo dekedaha iyo laamigu intuba waa hanti Soomaaliyeed nagama xigo laakiin dulqaad baan u lahayn waxaanu tixgelinaynaa wada dhalashada beelahaas waxaanu islahayn wax yar oo kooban baa u haray Faroole iyo gruubkiisa hal mid noqonina waxay socoto markii uu jawaabo adag heli waayay waanu mar walba tanaasul sameeyay shacabka walaalaha iyaga waqooyi bari degan inuu ciidamo military keeno soonkan maamul goboleedka Khaatuma State oo waliba gudaha u soo galo waxaan halkan uga baaqaynaa isimada uqaasha aqoonyahanka ningarboodka beelaha ma jeertaan waxaanu leenahay tallaabada militariga ah ee faragelinta qaawan ah ee gardarrada ah haddii aydan ka noqon waxaanu bixinaynaa jawaabta la mid ah waxaanu u tanaasulaynay waxay ahayd shacabka Puntland waxaanu soo dhaweynaynay oo walaaltinimada naga dhaxaysa iyo dirisnimada u adkeenaynay idinkay ahayd haddaydan arrintaa wax ka qaban oo faragelinta oo wada Faroole iyo gruubkiis aydan wax ka tarin runtii ma laaban doona faraha waxaan uga taayintaan kaga gudbayaa waxaanu dhowraynaa 24 saac soo socda isimada iyo waxgaradka iyo aqoonyahanka ku sugan deegaanada gobolada bari ee Puntland jawaabta mid ka dambaysa naguma harin inta taas baan ku dhaafayaa dhinaca kale haddaanu nahay sidii Cali Wadani u sheegay beelaha ku dhaqan Khaatuma State of Somalia ee maamulkan ka soo jeeda isma hayno ama aad ma gaabiseen isma hayno heshiis baan ku nahay maamul goboleedkan waanu ka wada tashanay waanu ku wada soconnaa halkan waxaan runtii uga mahadcelinayaa dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha dawladda ku meel gaarka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed
mudane madaxweyne sidaad la socotid amaanu kuu sheegaynaba faragelinta qaawan ee maamul goboleedka Khaatumo faragelinta qaawan ee maamulka Majeerteeniya uu ku hayo deegaanada Khaatumo waxaanu ka codsanaynaa kuna soo jeedinaynaa jawaabtaada cad ee dhexdhexaadnimada inaad ka geysatid sidoo kale dawladaha dariska ee daneeya Soomaaliya ee ugu horeyso dawladda Itoobiya Kenya Uganda ama dawlad goboleedka igad la yiraahdo AU-da Jaamacatul Arab intaba waxaanu soo jeedinaynaa in ay ka eegaan arrimaha wada maamulka Faroole oo lid ku ah wada hadalladii Soomaaliya u socday shirweynaha ka socda Muqdisho iyo xaaladda kala guurka ee Soomaaliya intaba caqabad ku yahay waxaanu aragnaa inay marmarsiyo doon tahay inta aanu jawaab ka helayno beesha caalamka annagu waxaanu mar walba sugaynaa oo ilaalinayna nabadgelyada qodobkaana intaas baan ku dhaafayaa runtii markaan soo gandadego kastamkan magaalada Tukaraq kastamkan xoog kumaanaan qabsan muddada 6 bilood ee maamulkan Khaatumaystada Soomaaliya uu jiray uma aanan jeedin gacan ku hayayaashii waad arkayseen booliiskii qaybta gobolka Sool oo deegaanka ku sugan shaqaalihii kastamiska ama maaliyadda Puntland u shaqayn jiray markii hore iyo shacabka reer Tukaraqeedba iyaga noo yeeray oo nagu wareejiyay kastamka xabadi kama dhicin xumaani kama dhicin wax dhibaato ah oo meesha la gala kulmay ma jirto hadeerna shaqaalihii iyo bilayskii iyo kuwii waliba cashuuraha ilaalin jiray la oran jiray ilaalada cashuur ciidanka ilaalada cashuuraha sidii bay gacanta ugu hayaan idna u mari mayno idna ka yeeli mayno idna ka ogolaan mayno inay gudaha Khaatumo maamul kale oo custom iyo control dhigto ma ka yeelayno runtii ma ka yeelayno sidaa darteed waxaanu leenahay cid kastoo arrintaa ku naayiloonaysa ama ku riyoonayso ka tanaasul intaas baan ku dhaafaynaa halkan waxaan hambaliyo iyo salaan iyo taageero uga dirayaa dhammaan ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Khaatumo Soomaaliya meel kasta ay joogaan sidoo kale waxaan hambaliyo iyo salaan uga dirayaa shacabweynaha reer Khaatumo iyo shacabka Soomaaliyeed intaba intaas baan maanta shirkan jiraad ku soo gabagabeynaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan doonayaa dhowr qodob inaan ka hadlo halka kan anigoo cali cilmi warsame shirkii talaxna al Mareykan laga bedelo leeyahay cali wadani dhowrka qodob marka ugu horeysa waxaan salaamayaa Khaatumo waxa la yiraahdaa beesha talax ku shirtay oo Khaatumo waagi hore SSC bay ahayd SSC waxay ahayd Soomaaliya sanadii cayn dad aan qabiilka ahayn baa ku soo biiray dabeedna Khaatumo ay shuruuday Khaatumo waan salaamayaa salaanka bacdi waxaan ka hadlayaa gobolada bari baan ka hadlayaa gobolada bari dadkeeda walaalaanu nahay waxaanu nahay dad wada dhashay laakiin waxaan aad iyo aad uga xumahay haddii ninku gardaran yahay in la qabto waxa weeye labada nin meesha madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ka aad baa loogu eegayaa xumaanta waliba loogu eegayaa madaxweynaha xumaanta waxa weeye iska nasiib weeye inuu madaxweyne noqdo waxa weeye xitaa waxa laga waayay rag iska daayay dumar 10 ama 5 oo intay warbaahinta yimaadaan yiraahdaa beesha waa laga gadanaya Khaatumo haddayna waxba taran hal nabadgelyo baa laga laayay hanooga noqdeen ciidamada jooga dalka iyaga hanooga noqdeen dalkoodii ha tageen waxa weeye dalka waan kala leenahay meel baanu ku jeednaa oo ku fooganahay in nala dhabar jibiyo oo lugaha nala baxo haddaan waxba nala tarin doonimo inaanu istiloo garoo wada galana doonimo dhib kale ayuu ninkaasi wadaa annagu waanu heshiinaynaa haddaan Khaatumo nahay
إن عرشلها سوا خاتمه أو كوخس بيه نكسر خاتمه هي نكسر بعدين وأنه هشين دونه لكن إذنك هشين منه حديث قالوا